الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. marka hore waxaan salaamayaa dhalinyarta reer Gabiley bulshooyinka reer Gabiley halkan ku soo dhaweysay labada abwaan ee daada yar halkan nooga soo bandhigi doona maansooyinkooda ku saabsan jacaylka. waxaan halkan ka salaamayaa aad uga mahad celinayaa Mustafa gudoomiyaha maktabada oo isagu dhaqdhaqaaq badan magaalada ku soo kordhiyay waayo in badan baynu qabyaalad iyo siyaasad maanta aynu ku dawaqsanayne caaw waxaynu isugu nimid inaynu maansooyinka labada inan halka ay nagu soo jeedinayaan ee ku saabsan jacaylka. jacaylku kullay waxaan maleynayaa anu jacayl markii la qiimeeyay la yiri waa maxay jacaylku ninbaa wuxuu yiri jacaylku waxa weeyaan waa qof xanuun ku dhacay oo dhakhtarkii aamini waayo yiri heblay daweynaysa ama hebel baa daweynaya waayo cilmo dhari waxa lagu lahaa halkee ku xanuunaysa markaas uu yiraahdaa hodanuun baa kaniin hadii loo qoro hodan baa siinaysa ula markaa waa ciidan dhakhtarkooda cid kale u qaadato weeyaan maran maray marka qof ku xanuunsan jacaylka jacaylkuna saddex buu hablaha maanta TikTok-ga ku jira ku ciyaara heesaha anu waxaan leeyahay saddexun baa yaa jacaylka dhaliya haddii kale uu dhintaa saddexda dhaliya waxa weeyaan xushmad xishood iyo xarago saddexdaas uu ninku gabadh ku jeclaan kara hadday qodobadaasi ka lumaan waxaad noqonaysaa qof kastoo ku daawadaaba inuu jirkaagu daawado kaliya ee aanu qof guur ka doonaya hadda TikTok-ga aad iska dayn weydo qof guud ka doonaya jiri maayaane laakiin qof jirkaaga raba ayaa jiri doona waxaan halkan caawa aan aad iyo aad uga mahadnaqayaa bulshooyinka reer Gabiley waxaan leeyahay sidaad horta u soo dhaweyseen abwaanadaasi oo amiin de macallin baanu ahaa dugsigii sare markii uu igu soo marti qaadayna waxaan idhi waan ka soo qayb gelayaa ballantiina waan fuliyay runtii marka la yiraahdo jacayl waxa la leeyahay jacaylka maxaad ka qaar baan ka lahaa ma barnaamijkeena jacaylka tagaysaa maxaad ka doonaysaa oo hadaanan ma dhalan lahayd hadaanu aabaha iyo hooyada aan isjeclaanin ma dhalatay sama nabiga kaleey salaatu wasalaam ifka yaad ugu jeceshaa la yiri muxuu yiri rasuulku Aisha ayaanu jecel bintu Abi Bakar yaa ku xiga aabaheed Aisha aanu jecel buu yaa ku xiga leedo Abu Bakar Sadiq buu yaa ku xiga jacaylku ilaa rasuulka ayuu jiray waa marka sida saxda laakiin loo wado waxaan qofku markuu lab anu waxaan de suugaanyahanada ku jiro dhalinyartu xilli ay jacaylka soo martaa jiro jacaylu aad ka gabayso laakiin markaad guursato wax badan oo karkii jacaylku uu ka dhilmayo waxaan loola yaabayaa qofka hadaan wali guursan jacaylku uu dhadhan fiican buu leeyahay laakiin maalintuu guursado jacaylkii waxaan maranayaa malaha waa taabida uu qabtayo jacaylka wuxuu ka santifu qaadan meel lama tagnay boo dhanaya magti anu waxaan arkay walow ayna badnayn intaan suugaanta tirinay waxaan la kulmay nin xaas leh oo gabadh kala jecel jacaylkaas aan ilaa imiga aanu garan lahay hadda xaaskiisii buu la jeefaa wuu hayaa waxaan arkay ninkiioo ergal loogu maqayay gabadh kale ayaan la kulmay waa hebelo xaas buu leeyo afar caruur leeyo wax habeennimadii wuxuu ka soo kacay xaaskiisii dabeedna maansa lugooyo la yiraahdo ayaan bariga tiriyay oo ay kamid ahaayeen laan yahay gabadhii buu la hadlaya laan yahay magooshe laalaadka badan li waxa aad ka lulataa laaleyshu dusheedii goormaad lib soo oran lahashiyo naftaydii leeyr bana geliso sidaan ahay lafteedii islaantii lihiinkeed dameerkeedii la lisay awrka samada laacday labadiiba weydiyo waxaan ahay nin lumayo lafihiisa eedo la ayaan gaadhay gabay nooc maanseero noocaas ayaan ka tiri balkaana caawa abwaanada ka suganaa jacaylka noocaas salaam